السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal kusoo dhawaada meel kasta aad joogtaanba warbixin yar oo kooban idiin diyaariyey. magacaygu waa Maxamed Diiriye. shalay subaxnimadkii hore waxaa magaalada Laascaanood soo gaadhay Cali Khaliif Galeed oo ahaa madaxweynihii hore ee Khaatumo una gacan galay maamulka Jeeganta in muddo aana ku sugnaa magaalada Hargeysa. hase ahaatee safarka uu ku yimid magaalada Laascaanood Cali Khaliif Galeed ayaa wuxuu salka ku hayaa khilaaf ku dhex yimid isaga iyo hogaamiyaha Jeeganta ee Muuse Biixi. hase ahaatee heshiisyadii ay wada galeen Siiraanyo oo ah maamulkii hore ee meesha ka baxay ee Jeeganta ayaanay weli waxba ka suurtagelin. Cali Khaliif oo soo gaadhay shalay magaalada Laascaanood ayaa maanta waxa uu dheelka Casuure la yidhaahdo magaalada ku yaala Laascaanood waxaa ku booqday odayaal aad u tiro badan. hase ahaatee safarkiisa wuxuu salka ku hayo si xaqiiqo ah daaha uga muuqaadin, laakiin ilo xogaala oo la xidhiidha waxa ay sheegayaan Cali Khaliif iyo Muuse inay ku soo kala cadhoodeen heshiisyo in badan uu Cali Khaliif Hargeysa ku naawilayay in wax laga hirgeliyo taasoo waxba ka hirgelin heshiisyadii uu ku taamayay Cali Khaliif in ay Jeegaantu wax u fuliso, taasoo ay ka mid ahayd in dastuurka Somaliland ama maamulka Jeeganta wax laga furo iyo awood qaybsi wasiirro cusub iyo nidaamyo cusub maamulka loogu furo. tiina may suurtagelin. Cali Khaliif iyo Muuse Biixi aad in dhawaad khilaafkooda aad ayuu u sareeyay. ta keentayna waxa weeye inuu Cali Khaliif ka soo cadhoodo magaalada Hargeysa. hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Laascaanood waanu diiday dadkii wax garadka ah inuu faahfaahiyo ujeedka safarkiisa, waxaana laga yaabaa inuu isii gudbo dhanka iyo magaalada Saaxdheer la yidhaahdo. wixii ka soo kordha waa idiin soo gudbinaya Maxamed Diiriye idin leh mahadsanidin.